adduunyadani intaad ku dhex sugan tahay waxay kaa sheegayaan dadku waxaadan ahayn adiga waxay kaloo kaa sheegayaan waxaadan jeclayn waxay kaa sheegayaan inaad samaysay waxaadan samaynin adiga sidaasi daraaddeed qaado cafiska wanaaggana far kana jeeso jaahiliinta dadku markii ay ku tuuraan webiga dhagax waxay sugaan dhawaqa dhagaxa markii uu biyaha ku dhacayo sidaasi daraaddeed qofkii si ula kaca kuugu dhufta dhagax yacnii si kasta kuu dhibaateeya iska jaahilsii maxaa yeelay qofka si kasta kuu xumeeya waa mid kaa sugaya inuu maqlo oohintaada iyo xanuunkaaga ee iska jaahilsii oo xitaa ha dareensiin inuu ku xanuunjiyey ilaa uu ka yaqiinsado in akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga uusan lahayn wax dhawaqa dadku saaxiibkayow waa sida macdanta dahabka qalinka iyo birta markii la soo muujiyo oo bannaanka la keeno qofka macdantiisa dhabta ah kulaylkiisana la muujiyo oo bannaanka la keeno waxaa soo baxaysa xaqiiqadiisa dhabta ah haddaba adigu soo muuji macdantaada runta ah si ay dadku u gartaan inaad tahay dahab balse haddaadan adigu soo muujin cidna kuuma aqoonsan doonto dahab walaalkayga muslimka ahow riyooyinkeenna iyo waxa gudaheenna ku jira ma beddeli karaan ayaga hadalladooda laakiinse iyadoo ay sidaasi tahay waxaynu u muujinaa ixtiraam si ay u hadlaan markaasi ayay bilaabaan inay ku tilmaamaan dhammaan hadafyadeenna iyo riyooyinkeenna wax liito oo qalada midna markasta xasuusnow liinta macaani lagama helayo dhexdeeda ilaa biyo macaan